dhaqankaagaba ka dhawaaq dheer maxay hadalkaaga hadduu dhaqankeenu dhaqan muslim oo dhaban noqdo taasaa dacwo ku filan iyadaa ah islaamnimada dhabta ah soomaalidu waxay yidhahdaan ninkaad kabaa ka tolanayso kabiisaa leega nin isba kabaalaa kaba ii tol kuma qurux badna idan markaynu leenahay dadka wardiinta qaata waa liibaanaysaane innaguna aan wixii sagsaagayno waxayna si fiican ugu dhaqmaynin aday dhigaysaa mawducu tuhma aday ku dhigaysaa waxaanaad sheegaysa inaad ka run sheegayso iyo inaad daacad ahayn saa daraaddeed dadku ku dhegaysan maayaan waxay kuu dhegaysan la'yiin waxa weeyaan tuhmad ay kaa qabaan dadku waxay kuu dhegaysan la'yiin maxay aday ku tuhunsan yihin dacwada naajixa waxaa calaamad u ah bay culammadu yidhaahdaan qofkan diinta sheegaya inuu aakhiro ka doorbidaya adduunka eraygaa u fiirso qofkan raba inuu diinta sheego ee dadka diinta gaadhsiinaya aakhiro inuu ka doorbidayo adduunka oo waa maxay fii suurati shucaraa ilaahay ambiyo badan buu kaga warramaya ambiyada waxa uu nebi waliba odhanaya wamaa as'alukum calayhi min ajr in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin waxba idinkaga dooni maayo dadku hadday u qaataan diinta inaad ku xoogsanayso inaad dantaada ku fushanayso te nin shaqaysanayaa lagu arkaya nin mabaadi' wada lagu arki maayo waxaa lagu arkayaa maxay qof shaqaysanaya haddii inta diinta sheegaysa ay noqoto mid jaamacad macallinka oo mushaahar ku qaadanaya mid masaajid imaamka ah oo mushaahar ku qaadanaya mid malcaamado dhigaya oo mushaahar ku qaadanaya kama hadlayo mushaahar in lagu qaataa ma bannaanta iyo ma baabkaa kama hadlayo dee ilan dadka baktiya odhan mayno haddaan cidbo wax siinaynin waa inay wax cunaanin laakiin waxa aan ka hadlayaa tilmaamaya waxa weeyaan mee dadkii diintan intuu iska xilqaamo dadka u sheegi lahaa isagoo wixiisa haysta isagoo aanay dadku u arkaynin inuu ku xoogsanayo waayo haddii bulshadu ay kuu aragto diintan aada wadaa inay kaa tahay mansab raadin iyo xoolo raadin iyo xukum raadin iyo waxaan raadin haddii lagu arko dee nin dad shaqadiisa wataa lagu arkaya laguma arko qof mabaadi xambaarsan ama haddii lagaa dareemo inaanad waxba ka rabin dadka jeebkooda waxa ku jira inaad doonaynin inay ku maamuusaan oo magac ku yeelaan oo hebelku yidhaahdaan oo fadhiga kaga kacan aad ka rabin inay madax kaa dhigtaan aanad ka doon waxaad ka rabtaa aanay jirin kelimadaadu mid la maqlaa bay noqonaysaa hadba inta dadku tuhmadooda aad ka fog tahay buu warkaaguna yahay war dadku dhegaysanayaan hadba inta tuhmada dadku ay kugu badan tahayna waxa yaraanaya in wax lagaa dhegaysto in lagu arko qof mabda' xambaarsan inaad tahay baa yaraanaysaa sida awgeed dadka diintan sheegaya waa inay noqdaan dad aakhiro iyo waxa ilaahay agtiisa yaalla kala muhiimsan yihiin dadka agtooda waxa yaalloo dhan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam madiine markuu rabay inuu hijroodo waxa u yimi saxaabo reer madiine ah bayca heshiis bay la galeen baycat alcaqaba waxa uu nebigu weydiisanaya calayhi salaatu wasalaam haddii uu soo hijroodo inay diintan u difaacayaan siday naftooda iyo maalkooda iyo ehelkooda u difaacaan in loo dhimanayo okay su-aal bay markaa nebiga weydiiyeen haddaanu sidaa yeello maxaanu leenay haddaad noo timaadid oo aanu ku difaacno oo carab oo dhammi meel qudha nagaga soo wada jeesato oo aanu naf iyo maalba kugu difaacno saanu carruurtayada iyo reeraha iyo xoolahayaga u difaacino kuu difaacno maxaanu annaguna leenahay u fiirsa nebigu muxuu ku yidhi marka aniga dabadaybaa madax noqonaysaan miyuu ku yidhi wasiiraan idinka dhigayaa ma yidhi dowladda dambe ee islaamka abaa wax ka helaysaan ma ku yidhi maya manfac dunawiya uma sheegin walakum aljanna buu nebigu yidhi sidaa haddaa yeeshaan jannaa helaysaan macnaheedu waa maxay qofka diintan raba inuu u diriro inuu faafiyo inuu hirgeliyo inuu mabda'an xambaaraa waxa uu raadinayaa waa inay janno noqotaa waxa uu raadinayaa waa inay janno noqotaa markaasi mabda'ani wuxuu noqonayaa mid dadku ay u arkaan inay dantooda ka warramayso ay qaataan
laakiin marka ay u arkayaan in dantaadu adiga ku xidhan tahay oo adigu aada manfac ku haysato ama magac ku haysato ama adduun aad ku haysato ma badnaanayso in dadku wax kaa dhegaystaan. saddex waxaynu leenahay ama afar, dacwada naajixa waxaa asal u ah bay culammadu yidhaahdaan oo ka mid a dadkan ducaadii inay yihiin dad daakiriina, dad ilaahay xuskiisa badiya, dad ilaahay xuskiisa badiya oo waa zaadka ugu fiican ee uu qofku waddadaa u qaato. nebi maxamed ilaahay muxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, yaa ayuha almudathiru qum faandir warabbaka fakabir wahiyaabaka fatahir warujsa faagir. waxaa la yidhi kan istuuduubayow kac oo dig, qum faandir, maxaa loogu xigsiiyey markaa warabbaka fakabir, rabbigaa weyney cibaadayso. yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi waratil ilqur'aana tartiila innaa sanulqi calayka qowlan haqiila. waar kan istuuduubayow baa ilaahay leeyahy, kan isdadayow kac habeenkii in badan, habeenkii in badan oo ka mida kac, waayo oo qur-aanka akhriyo cibaadaysaa la yidhi, waayo innaa sanulqi calayka qowlan haqiila, war culus baanu kuu dhiibaynaa baa ilaahay yidhi. warkan culus waxaa xambaari kara qofka ilaahay si fiican ugu xidhan. haddaan ku idhi adduunna ha qaadanin, laguna tumayo ama lagaa soo horjeesanayo ama lagu cadaadinayo ama lagu caayo ama lagu dhibayo, saad ugu adkaysanaysaa? waxaad u adkaysanaysaa haddaad ilaahay xidhiidhkaagu fiican yahay.